dadweynaha ku nool magaalada Buuhoodle oo la dhaxqaadnay mikrofoonka ayaa si adag waxay u cambaarayeen falkii waxashimadaha ee isugu jiray dhimashada iyo dhaawaca isla markaana xilka looga qaaday gudoomiyihii baarlamaanka dawladda Puntland sharci darrada ah Dobadaarood waxayna falka ku tilmaameen fal aan loo dul qaadan karin iyadoo eedan culus dusha uga tuuray madaxweynaha haatan talada Puntland haya ee Siciid Cabdilaahi Dani waxaan anigu aaminsanahay inaan gudoomiye kale arladaba ka jirnay gudoomiyaha saxda uu yahay Dobadaarood sifaha sharciga loo soo doortay sharciyo laga qaado mooyay hadda sifa sharciya ma aha waa qori afki hada Cabdirashiid Baleeya waxaan anigu u arkay wixii ka dhacay meesha inay wax sharci darro ay yihiin wax sharci darro ay yihiin baan u arkay ay tahay sifa aan sharciga waafaqsanayn baa loo isticmaalay waxa loo isticmaalay ciidan xoog awood sheegasho caburin intaas loo sheegtay wax sharciya iyo beesha caalamka ogoshay iyo wax dastuurka Puntland ku yaalana midna ma waa wax xaraam ah oo sharciga ka fog waxaan u arkaa in aan meeshaas ay u eg tahay sidii laga sameeyay golaha deegaanka waxa lagu sheegay loo soo diray nimanka wasiirada ee sideeda loogu soo diray Buuhoodle burburintii oo kale baan u arkaa in inta dambena la burburinayo oo la isdaba raacinayo marka maamulkaas waxaan u arkaa maamul hadda sii jeestay inuu u egyahay haddaan ilaahay cid kale u bixin ama aan dawladda federaalku soo gacan gelin gudoomiyaha waxa lagu wadeeyay inuu Puntland burburinayo oo federaalka lacag soo qaatay sawartan dawladda federaalku iyo dadka ka mas'uula maamul goboleedadan oo wax aan dhib ahayn dalka ugu filaba anigu waxa baan oran lahaa maamul goboleedadan ba laga taqaluso dawladda hadalka lagu soo celiyo waxa aan dhib ahayn xagga lagu arkay laba dawladood iska garab shaqeynaya laba dawlad iyo laba madaxweyne isku teeto iska garab shaqeynaya lama arag dalku dawlad buu leeyahay oo dawlad leeyahay ma jirto maamul goboleedkan yar ciduu doonana la shiraya ee dawladaha shisheeye dhinaca saaraya inuu dalka sidoo doona ka yeelo wax waajiba ma aha mana ogolin dhimashada dhaawac ka dhacay baarlamaanka waa lagu laayay dadka shacabka ah lagu laayo cagta lagu mariyay iyadoo loola jeedo caburinta iyo hawsha loola jeedo dadka shacabka cagta lagu mariyay oo lagu laayay dhimashada iyo dhaawac ay ka soo gaad gudoomiyaha baarlamaanka ee Dobadaarood waxa uu sheegay inuu u baaqay dadka soo horseynaya Buuhoodle inay midoobaan oo iyo gobolka iyo bariga Boosaaso sabab tarta haddii badan anagu ugu dhawaaqnay qolada warsangelay inay ka soo qayb galaan meeshana aysan dan u ool waa ilaahay mahadi mar haday maanta ay iyaga cusqatado ay maanta ku tooseen waan soo dhaweynaa anagu waxaan leeyahay horta tacsiidaas intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacana Allah u boogadhayo dani wuxuu maqlay warsangeli uu ka soo digay rogtay saaq uu ka soo dhamaaday way ku jaban yihiin waa maroodi jabay laakiin ma jabna warsangeli sool iyo sanaag iyo cayn way isku xidhan yihiin maamulka Puntland ama maamulka Soomaaliland ama maamulka Puntland maamul eegna way samaysanayaan waxay ku waaya arkaana Puntland iyo Soomaaliland way ku arkeen maanta haday wax qabsan waayaan maalin kale wax qabsan waayaan jaaliyadahana waxaan ka codsanayaa Sool iyo Sanaag iyo Cayn u dhalatay inay maamulkooda xoojiyaan inay maamulkooda isgarab taagaan maanta waxa weeye dhaqaale hub iyo rasaa iyo hub iyo maxay tahay dhaqaale ba maanta maamul lagu samaystaa inay si cad maamuladooda isu garab taagaan waxa weeye wassalaamu calaykum soo magacayga Ismaaciil ka salida moogta Ismaaciil ba ka waran ka dhac garow qalad bay ahayn macna maxay khalad tahay madaxweynaha waxa la wixii garow ka dhacay madaxweynaha khaladka lahaa seebu ku lahaa wuxuu ku lahaa waxa la wixii daliil loo soo jeediyay muqaadan waay kabacdina kursiga buu iska kacay markii daliil loo soo jeediyay si yaani shirindima kowdade saasuna waa qeyril mas'uulimo markii hore niman madaxweyne qalbin ba madaxweyne laga dhigay xasan magaca ku bilow warka ka dhacay baarlamaanka anigu waxaan xasan maxamed cabdinuur waxaan arkaa wax aan awal baan ugu filayay dadkuna bini aadamkiina waxa fiican inuu waxa uu filayay uu san ama ka argixin ama uu san wax dhibo arag meeshan reer bala xawaal reer lahaa bay nimankana marti bay ahaay martidina way socod badatay marka reerka hawshiisa qabsada saasaan ugu arkaa weerar ka dhacay sababta baarlamaanka marka baarlamaan baa ay jirinba
markii hore yaan baarlamaanka meesha ka jirinba beelaha warsangeli iyo kuwa dhulbaantaba sida bini aadamka inay u shaqaystaan oo noqdaan oo waxay leeyihiin samaystaan. magacaygu waa maxamed cabdiqaadir axmed cali jooga magaalada Buuhoodle. haddaan ra'yigay ka dhiibto xilka qaadistii lagu sameeyey gudoomiyihii baarlamaanka Puntland waxaan u arkaa arrin sharci darro inay ahayd, waayo baarlamaanku wuxuu ku hubi jiray fasax sida la sheegay. marka waxaan u muuqanaysaa in meesha wixii ka dhacay ay sharci darro ahaayeen, isla markaana aan wada sharciga loo soo marin, baarlamaankuna uu fasax ku jiray. marka arrinta aad iyo aad baan uga xunaa. waa aftur baadle arrinkaasi gudoomiyuhu sidoo inoo sheegay waa baarlamaanku fasax uu ku jiray. meeshana isla habeenkiiba dagaal baa ka dhacay, aroortiina iyadoo dhibti taallooba haddana waxaa meesha ka dhacay dee xilka qaadis. marka arrimo isqabqabanaya maaha. arrimihii dee Puntland loo asaasayna waxay ahayd tala wadaag iyo in ay bulshadu dee qolo waliba wixeeda ay ilaashato. marka waxay muuqanaysaa meesha in dad gaari ay ku amar sharci looga qaado xil gudoomiyaha ma qabo, oo waayo meeshuba dee golo military bay isu bedeshay. waa in dee gudoomiyuhu ra'yigiisa dhiibtaa oo hadlaayo la soo dacweeyaa oo uu ka hadlaa meesha uu jooga marka xilka laga qaadayo. waxay ahayd wax sharci darro ah, wax sharci darro ah oo aan sharci lagu tilmaamin buu ahaa. sharcigan haddii dee la duwo oo lacag loo isticmaalo waxa weeyaan sharci ma noqonayo. waa sharcigu waxa weeyaan sharciga la isticmaalo, laakiin haddii lacag la isticmaalo dee sharci ma noqonayo. marka aad baan uga xunnaa. baarlamaanka Puntland wixii ka dhacay waxa weeyaan waxaan u arkaa nasiib darro soo heetay horta marka hore Puntland. sababteedana waxaan u arkaa inuu leeyahay madaxweynaha waddanka, sababtoo ah madaxweynaha markii loo soo jeediyey dhaliishii loo soo jeediyey sidii wiil jirriya buu ka kacay kursigii, buuqii oo ka bilaabay meeshuu isagu dadka gasban lahaa ee ka hadli lahaa waxa dhaliilaha loo soo jeediyey iska difaaci lahaa ama tusaale ka bixin lahaa wuxuu ku sameeyey si aan mas'uuliyad darro ah buu uga kacay. waxaan u arkaa waxyaabaha sababay Puntland baabeeda inuu yahay madaxweynaha waddanka maanta haysta. waxaanu leenahay madaxweynaha maanta haysta sidii baarlamaanku u sheegay iskaga tag kursiga, dadka waxaad u soo guuldarraad u soo hoysay Puntland aad u daba dheer iskaga baxbaanu ku leenahay intaadan ummaddu aadan galaafan.